xeebaha badweynta India ee Soomaaliya waxaa ku taalo magaalo qadiimi ah oo leh qarniyo badan oo taariikh iyo xasuus ah. Magaalo uu ka dhashay dhaqamo hodan ah, culimo waaweyn iyo ganacsi caalami ah. Magaalo xeebeed quruxdeeda iyo taariikhdeedu la isku raacay. Magaaladani waa Baraawe. Baraawe ma ahan oo keliya magaalo, balse waa buug furan oo ay ku qoran yihiin sheekooyin badan oo ka hadlaya dhaqanka, diinta, ganacsiga iyo nolosha dadka Soomaaliyeed ee qarniyo badan soo jiray. Haddaba aan ku safarno waqti iyo taariikh, aan dib ugu noqonno qarniyadii dhexe oo aan aragno Baraawe sida ay ahayd iyo sida ay maanta tahay. Waxaa la rumaysan yahay in Baraawe la aasaasay in ka badan 1000 sano ka hor, xilliga ay xeebaha Soomaaliya ka xana qaadeen magaalooyin ganacsi oo xiriir la yeeshay Carabta, Farisiyiinta iyo Indiya. Magaaladani waxa ay ku taal xeeb muhiim ah oo ay maraan maraakiibta badweynta Indiya. Waxaa lagu yaqaanay in ay tahay tekad dad badani ku soo hirtaan xoolo, timir iyo waxyaabo kale laga dhoofiyo, halka dhar iyo hub iyo badeecooyin kale la keeno. Sidaa daraadeed, Baraawe waxa ay noqotay magaalo caalami ah oo isku xirta Afrika, Carabta iyo Aasiya. Islaamka waxaa Baraawe loo tixgeliyaa inuu aad ugu xoogeystay qarniyadii dhexe. Culimo waaweyn ayaa ka soo baxay Baraawe, kuwaas oo kitaabo iyo suugaan qoray, waxna baray boqolaal arday. Masaajidada magaalada oo qurux iyo taariikh leh ayaa weli taagan maanta, ayagoo markhaati u ah in Baraawe ay ahayd xarun diimeed iyo cilmiyeed. Waxaa caan ka ah xaflado iyo barashada Qur'aanka, halkaas oo carruurta iyo dhalinyarada ay ku kori jireen. Dadka reer Baraawe waxay leeyihiin dhaqan gaar ah oo isku dhafan. Waxaa ku dhex milmay dhaqanka Soomaaliyeed, Carab iyo Sawaaxili. Waxay ku hadlaan af gaar ah oo loo yaqaan Jimwin ama Baravani, oo ah laan ka mid ah Kiswahiliga, balse ay ku jiraan erayo badan oo Soomaali iyo Carabi ah. Muusiga, goobka ciyaarka iyo cuntooyinka Baravaniska ah ayaa caan ah. Hilibka, bariiska, kalluunka iyo suugada udgoon waxay ka dhigeen Baraawe meel cunto dhaqameedkeedu caalami yahay. Suugaanta iyo heese dhaqameedku waxay Baraawe ka dhigeen magaalo dhaqan hodan ah oo la mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee xeebaha Afrika. Qarnigii 19aad, Baraawe waxay gashay gacanta Talyaaniga kadib markii gumaystaha ku fiday xeebaha Soomaaliya. Magaalada ayaa markaasi noqotay xarun ganacsi iyo ciidan. Inkastoo uu gumaystaha magaalada saameyn ku yeeshay, haddana dadka reer Baraawe waxay sii wateen ilaalinta diintooda, dhaqankooda iyo luqadooda. Waxaa halkaasi ka dhacay iska caabin iyo halgan. Baraawe maanta waa caasimadda gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku nool bulsho Soomaaliyeed oo isku dhaf ah, balse weli ilaalisa dhaqankii iyo luqadii hore. Xeebta magaalada ayaa ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Soomaaliya oo soo jiita dadka socdaalka iyo dalxiiska xiiseeya. Inkastoo ay soo martay waqtiyo adag sida dagaaladii iyo xasilooni darrada, haddana Baraawe weli waa magaalo leh nolol, dhaqan iyo rajo. Ugu dambeyntii, Baraawe waa magaalo aan ahayn oo keliya dhul iyo dhisme, balse waa meel ay ku duugan yihiin qarniyo badan oo taariikh ah. Waa magaalo muujinaysa isku dhafka dhaqamada, ganacsiga iyo diinta. Waa magaalo soo martay halgan, haddana weli taagan. Haddii aad maanta booqato xeebaha Baraawe, waxaad dareemaysaa neecaw ka imaanaysa qarniyo hore. Waxaad maqlaysaa heesaha dhaqanka oo ku dhawaaqaya, waxaadna arkaysaa dad ilaalinaya magaca iyo dhaqanka. Baraawe waa xasuus nool oo Soomaaliyeed. Waa magaalo qadiimi ah oo weli leh mustaqbal ifaya.